kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale ayaa barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada dunida oo idil halka lana socotaan waa maqal media group. waa maalinimo isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 26 bisha December 2022 daawadayaal kusoo dhawaada maqal media group. wadabada weyn warka idinku haysaanba ay falanqayn doontaan waxaa kamid ah militariga Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay la soo banbaxayay awoodo xadaafa taasoo ay ka dhigaan wacala iyo taariikh dagaalo badan ay la galeen ururka al-shabaab, balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa ku socday dagaalo dhinaca warbaahinta ee dalalka reer galbeedka oo marnaba raalli ka ahayn inay Soomaaliya awoodeysato. dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminaya madaxweynaha hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dalka Eritrea geysay ciidamadii ugu badnay ebed ee hal mar tababar loo geeyo, halkaasoo ciidan gaaraya 5,000 oo militariga oo qaybaha kala duwan ah ay dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tababar ciidanka wadanka Eritrea ay ku siiyeen, balse ciidamadaas ayaa dhaliyay xaalado kala duwan kadib markii dad badan ay sheegeen inay ka qayb galeen ciidanka Soomaaliya ee loo adeegsaday dagaalkii baahnay ee ka dhacay gudaha Itoobiya ayaa arrintaas beenisay. siyaasiyiin waaweyn oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilligaas mucaarad ahay ayaa barihiisa bulshada ama meela waaweyn oo ka sheegay in dhalinyaradaas ay ledlaayay lana geliyo dagaal taasoo oo been ahayd. dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wax waraan ka bixin dhalinyaradaas intay ku maqnaayeen wadanka Eritrea. waalidiin Soomaaliya ayaa ka xareysnay dowladda aamusnaanta iyo wiilashoodii oo dhalinyaradaas ka maqneed waalidiinta dadka Soomaaliyeed, balse dowladda Soomaaliya ayaa haba yaraatee aan u arkin xilligaas uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay dadka u jawaabto. mucaaradiin ayaa ka faa'iideysta kadib markii ay baahiyeen in dhalinyarada Soomaalida lagu gaagoom tiray dagaalkii baahnaa ka dhacay gobolka Tigreega ayaa hore u baahaystay inay ciidan dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ay dagaalka kula jiraan jamhadaas, taasoo ahayd mid sal iyo raad midba aan lahayn. kadib mucaaradadaas waaweyn ee dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dadka Soomaaliyeed ugu weyneed ciidankan dalkaas Eritrea loo qaaday, taasoo dowladdii xilligaas aysan wax wara aysan sii jirin dadka. siyaasiyiin waaweyn ee looga yaqaan geyga Soomaaliya ayaa war badan ama meelo badan ka sheegay in ciidamadaas loo adeegsaday dagaalkii dhiigmeerka ahay ee ka dhacay gudaha Itoobiya, balse waxay noqotay mid sal iyo raad midba aan lahayn kadib markii dhalinyaradaas ay magaalada Muqdisho ay dib ugu soo laabteen. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 2 safar ku tagay Asmara, halkaas uu kula kulmay madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki. labada hogaamiye ayaa la sheegay inay sii wadaagi doonaan iskaashiga dhinaca militariga. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay dhigiisa Eritrea tababarka xooggan ee la siiyay ciidankan Soomaalida. ciidamada halkaas ku sugan ayaa lagu soo warramay inay gaarayaan 5,000 oo military. ciidamada dhulka, kuwa badda, kuwa cirka ay tababar aan caadi ahayn ay siisay dalkaas, taasoo hadda waxaa lagu soo warramaya ciidamadaas la rabo in la kala irdheeyo oo shanba meel laga tuuro sida lagu soo warramaya. dowladda Soomaaliya ayaa dagaal dhiigmeera kula jirto ururka al-shabaab, taasoo dadka qaar ay sheegayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadda uu hogaamiyo in ay gey doonto gobolada Boqbay iyo Boqol iyo Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ciidankaas, balse arrimaha la sheegaya iyaduna kamid ah in ciidamadaas la doonayo boqolba meel in la geeyo, taasoo bahdil ama nasiib darro weyn ku noqon karto iyo jab haddii la kala irdheeyo awoodda ciidamada Eritrea lagu soo tababaray. dowladda Soomaaliya ayaa aad u danaynaysa ciidankaas hadda uu dalka dagaal baahan ay kula jirto ururka
al-shabaab. Ciidankaas ayaa la doonayaa in lagu xoreeyo deegaanada ay ka joogaan ururkaas gobolada Bay, Bakool, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose, kuwaasoo ururka al-shabaab ay muddadii 15 sano ahayd ay ku xididaysteen. Dowladda Soomaaliya ayaa gebi ahaanba ka burisay Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ururkaas, taasoo ay dowladdu carab weyn u qabto goboladaas in ay si fudud looga xoreeyo, taasoo u muuqatay inaysan dhici karin. Ururka al-shabaab oo ku xoogan deegaanada koonfurta gaar ahaan Bay iyo Bakool, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Militarigan ayaa sumcad darro weyn marar badan loo geystay, balse hadda u muuqda mid aad u wanaagsan una niyad iyagoo diyaar u ah inay dalka iyo dadka Soomaaliyeedba difaacaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wada howlgallo ay militarigoodu ay ka fuli doonaan gobolada idil oo dalka Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliya ayaa marnaba wadamada reer galbeedka aysan daneyneyn inay awood buuxda ay yeeshaan, taasoo mar waliba dhalisa inay dalka Soomaaliya amni darro iyo xasilooni la'aan ay ka jirto. Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa mar waliba u dhiga jidgooyooyin waaweyn in ciidamada Soomaaliya aysan dib u soo noqon, iyadoo taasuna jirto wadamada deriska ay ka cabsi qabaan awoodda militariga dowladda Federaalka Soomaaliya. Militariga Soomaaliya waxay aaminsan yihiin dalalka deriska hadday militari xoogan yeelato in ay iyaga khatar ku tahay, taasoo ay horay u arkeen arrimo waaweyn ee militarigii xilligaas xukunka hayay 70-meeyadii oo hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ay dagaal ku galeen dalka Itoobiya, guud ahaan cagta marseen ciidamadii awoodda badnaay ee Itoobiya. Daawadayaal, warkan intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Nabadgelyo.